kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo daafaha caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada mid ka mid ah qisooyinka aan idinkugu talagalnay ee isla marhaantaan aan idinkugu soo gudbin doono barteena internetka waan kaaga mahad celinaynaa in aad nagu soo biirto ood saaxiibada na dhegaysta ama na daawada aad ka mid noqoto waxaan kaa rajaynaynaa inaad follow like share intaba aad noo samayn doonto si aanu u gaarno himiladeenna si aad inoola socoto maalin kasta mawduuca xiisaha badan ee aanu idiin soo gudbino waa barnaamijkeena waana barnaamij aanu aragtiyada kala gedisan u soo gudbino qisadii sixirkii madowaa marka ay dhagahaagu maqlaan sixir ayaa wax lagu dhacay durbo waa waxa ugu horreeya ee ku cabsi gelin kara balse ogow sixirka ayaa ka mid ah xeeladaha ay adeegsadaan dadyow fara badan oo dunidan daafaheeda ku nool kuwa oo ka dhigta aalad ay wax ku dhacaan dadka caadiga ah iyo weliba shirkadaha waaweyn ee adduunka qisadan ayaa laga yaabaa inaad horay u maqashay ama hadda ay kugu cusub tahay maqalkeedu inkastoo diiwaanka qoraalka ay gashay sannado badan ka hor qisadan sixirka madow ayaa dhex martay nin ka soo jeeda asal ahaan dalka maali oo dhaca bariga qaaradda afrika iyo weliba maalqabeen ka soo jeeda isna boqortooyada isu tagga imaaraadka carabta waana qiso marka aad dhegaysato ku soo jiidanaysa adiga oo la yaabaya sixirka baa shirkad ama bangi weyn oo sannado badan jirsaday lagu dhacay taa oo ay sii dheeraata in looga aruursaday qiyaastii adduun lacageed oo gaaraya $242 milyan oo dollarka maraykanka ah sheekadan ayaa ku bilaabanaysa kadib markii shakhsi reer maali ah ee lagu magacaabo Fondeka Sesco uu safar gaaban ku tegay dalka imaaraadka carabta waxaana markii uu indheeyey kadib durba uu u fakeray in uu howshiisa dhaca uu ka bilaabo bangiga ugu weyn dalka isu tagga imaaraadka carabta ee Dubai Bank uuna weydiisto lacag amaa ah si uu ugu iibsado gaari raaxo kadibna uu dib lacagta ugu soo celiyo Fondeka Sesco waa nin imtixaana imaatinkiisa kadib waxa uu durba abbaaray Dubai Bank isagoo u sheegay codsigiisa waxaase halkaa uga hor yimid shaqaale shaqadooda aad loo soo carbiyey isla marhaantaana aad moodid tababarra saa'ida in la soo siiya waxayna u sheegeen in ay qasab tahay la kulanka maamulka isla markaana si ay ayagu go'aan rasmi ah uga gaaraan waxaana fariinta la gaarsiiyey durba maamulaha bangigaasi ugu sarreeyey maamulaha oo lagu magacaabo Maxamed Al-Ayubi ayaa nasiib wanaag aqbalay la kulanka ninkan reer maali waxa uu u sameeyey casho sharaf aad u weyn si ay uga wada hadlaan arrimaha dhinaca deynta lacageed sida ku qoran ama se uu ugu warramay BBC-da sameeyaha qisadan Fondeka Sesco oo ah nin ka soo jeeda asal ahaan dalka maali ayaa gudagalay arrinka uu ka rabay maamule Maxamed Al-Ayubi isagoo u sheegay lacag amaah ah taas oo uu rabo in uu ku iibsado gaari raaxo balse intaanu jawaab ka bixin maamuluhu waxa warka sii watay Sesco isagoo markaan gudagalay sheekadiisii sixirka iyo indhasar caadinta isagoo maamulaha u sheegay in uu yahay ruux haysta awood badan oo sixir ah hadduu doonana uu lacagtiisa uga dhigi karo mid laba jibaaran mar qura maamulaha oo dhoola caddaynaya lana dhacsan warka ka soo yeeraya Sesco ayaa yidhi ka warran haddaan mar kale kulanno anigoo lacago sita si aad wax iiga tusto awoodahaaga sixirka Sesco ayaa qalinka ku jiiday oo aqbalay mar haddii maamuluhu durba aqbalay oo rumaystay qaybtii hore sixirka ama indhasarcaadka waxaana fadhigoodii labaad lagu ballamay qasriga uu Dubai ka degan yahay Maxamed Al-Ayub maalinkii labaad ayaa waxaa lagu kulmay gurigii Maxamed Al-Ayub oo isla mar ahaantaana halkaasi ay ahayd ballanta in lagu kulmo waxaana la fariistay qol ka mid ah qololka guriga balse
in yar kadib markii sheekadii la guda galay ayaa waxaa si lama filaan ah kor ugu qayliyey cod dheer seesko waxaana mar qura iswada qabsaday qolkii qaylo iyo sawaxan maamulaha oo markaasi weydiiyey waxa ay yihiin qaylada seesko iyo weliba sawaxanka inkastuu seesko ku sheegay in ay tahay carada jinka oo intaa kadib laga yaabo inuu iska diido lacagta inuu badiyo ama laba jibbaaro maadaama sheekadeennu ay dheeraatay jinkuna uu sugayay in markaasi uu lacagaha sii tira badiyo oo uu noo badiyo saaxirkii ayaa maamulihii ku yidhi aniga ayaa jinka la xaalaya ee intaad lacagta igu soo wareejiso isaga bax qolka si lacagta uu u laba jibbaaro jinkan ila dagaalamaya maamulihii ayaa rumaystay warka ah in lacaga kale ku soo duldarsoomi doonaan waxaana uu u dhiibay lacagihii isagoo uga baxay qolka